kow labo saddex kow labo saddex kow labo saddex السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهين دمانتين magacayga waa islam kusoo dhawaada salaanta maxaa u bedeshay salaan cusub maanta mootadii ay ka degatay ninkeeda ay ku dhigtay balaayo buuq meesha boqor markaa laga dhigay amarka ugu horeeya oo soo amray ama soo saaray waxay ahayd in oo waardiyahaas kulli dhammaantood xukunkii ama boqornimadii waxaa loo dhiibay ama waxaa gatay nin la yiraahdo Didius kow labo saddex qaybta labaad marka kaamirada garoonka ay waxay ku dhacday isagoo lambar gabar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كو لابو سدح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهين أمانتين maanta waxaa idin soo bandhigaa warar laga yaabo in aad weligaa maqlin qaybta maxsuuste ninkan maadaama uu ku jiro xisbi ka mid ah xisbiye fikrad ayuu run ahaantii ma ogi arrintan ama fikraddan say ku dhammaatay ama maxaa la dhahay wiil oo u dhashay dalka Ciraaq wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka ama Jarmalka ina dhahan rabi alo war waxay ku jirtaa xaanshada oo kringla baakadeed xaanshadeed daraajada agteeda ay taalaan wala 2017 macnaha 12 sano ma hadlaynin sida oo booliiska xataa markuu wareysanayo iyo marka la baarayo jawaabta dhan wuxuu ku bixinayo ninkan oo la yiraahdo Gonzales wuxuu lahaa saaxiib oo gabar ah ayuu lahaa kadib muddo kadib 2000 muddo kadib albaabka diskooga ayuu meesha albaabka diskooga ayaa inta qof oo meesha ku jirtay Discoland isbitaalka ayuu aaday takhaatiirta ayuu la hadlay takhaatiirta